markii ugu horeysay wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Mareykanka ayaa waxa ay baahisay sawirada wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Mareykanka oo la sheegay inuu soo gaaray mid ka mid ah saldhigyada Mareykanka ee gobolka Bariga Dhexe. inkastoo si cad aan loo sheegin saldhigga uu tagay, haddana waxay noqonaysaa markii ugu horeysay oo uu soo muuqdo tan iyo dagaalka markii uu bilowday. Iiraan waxay caawa shaaca ka qaaday in mowjadii ugu cusleed ee weerar ay ku qaaday gudaha Israa'iil. markaad eegto duqeymaha culus ee la isweydaarsanayo saacadaha ugu dambeeya, ma waxay ka dhigan tahay qof kasta gacantiisa halka ay gaari karta ha gaarto, dagaalka gabagaba ayuu ku dhow yahay, mise mowjado kale oo dagaal ayaa soo socda? warbaahinta Israa'iil iyo warbaahinta gobolka ayaa waxay qireen in weerarada caawa Israa'iil ay la kulantay inay ahaayeen kuwii ugu xoogga badnaa tani dagaalka markii uu bilowday. waxaana barta Twitter-ka lagu baahinayaa muuqaalada seeriga digniinta isqabsaday qaybo badan oo Israa'iil ka mid ah, gantaalada goobaha ay ku dhacayaan iyo burburka ka dhashay duqeynta Iiraan ee gelinkii dambe ee maanta ilaa caawa. waxay Iiraan shaaca ka qaaday kadib qoraal ka soo baxay ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan in mowjada 89aad ee ballanqaadka afraad in ay adeegsadeen in ka badan 100 gantaal iyo diyaarado daroonis ah. waxaana la soo bandhigay goobo laga tuuray diyaaradaha darooniska iyo gantaaladaba. warbixinta marka waxaan diiradda ku saari doonaa goobaha ay sheegtay Iiraan inay beegsatay, gantaalada la adeegsaday iyo khasaaraha la diiwaan geliyay. gudaha Israa'iil waxay sheegtay inay beegsadeen magaalada Tel Aviv, magaalada Eilat, magaalada lagu magacaabo Sharon, deegaanka Netanya, bartamaha Israa'iil guud ahaan, deegaanka lagu magacaabo Bani Parak iyo buuraha Golan Heights loo yaqaan ama Golan Heights. Iiraan waxaa la sheegay inay adeegsatay gantaalo balaastiga, diyaarado daroonisa iyo gantaalka dhowrka madax u qaybsamaya oo waliba Israa'iil ay sheegtay in bamka clusterka uu ku xiran yahay, iyadoo mowjada weerarku ay ahayd mid isku mid ah oo mar qura Xisbullah iyo Iiraan bay ku weerareen qaybo badan oo Israa'iil ka mid ah. waxa dhawaaqa qaraxyo xooggan laga maqlay marka magaalooyin dhowr oo ka tirsan gudaha Israa'iil, gaar ahaan magaalada Tel Aviv, magaalada Haifa iyo magaalooyin kale. waxaa sidoo kale la sheegay ku dhawaad 20 daqiiqo dadku inay ku qasbanaadeen inay kala cararaan maadaama seeriga digniinta uu isqabsaday xaafado dhowra. warbaahinta Israa'iilna waxay weerarkan ku tilmaameen kii ugu ballaarnaa tani dagaalka markii uu bilowday. tiro dhimasho ilaa iminka lama xaqiijin, dhaawacna sidaasi oo kale. Iiraan war-saxaafadeedka ciidanka ilaalada ay soo saareen waxaa kaloo ay sheegeen gacantooda inay gaartay dalalka Khaliijka, oo waxaa la sheegay inay beegsadeen saldhigga lagu magacaabo Al-Udayri. saldhiggan wuxuu ku yaalaa gudaha dalka Kuwait, waxayna sheegeen goob diyaaradaha helikobtarada iyo baqaaro qalab military ay yaaleen inay beegsadeen. khasaaruhu waxay ku sheegeen hal diyaarad oo helikobtar ah inay burburiyeen, mid kalena ay waxyeello ay gaarsiiyeen. saldhigganna waxaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah goobaha ugu muhiimsan ee logistikada ee ciidamada dowladda Mareykanka. Imaaraadka Carabta ayaa sheegeen sidoo kale inay beegsadeen saacadihii lasoo dhaafay, waxaana ay sheegeen inay burburiyeen 2 ka mid ah ee raadarada digniinta hore bixiya oo Mareykanka uu geeyo gudaha dalka Sultanka Imaaraadka Carabta. sidoo kale waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen goob muhiim u ahayd ciidamada Mareykanka. dhanka iyo Imaaraadka Carabta, Iiraan waxay sidoo kale sheegtay inay beegsadeen goob ay ciidamada Mareykanka ku sugnaayeen oo qarsoodi ahayd, halkaasina 37 askari ay ku dileen, laakiin sheegashada waa dhinacooda oo kaliya. Imaaraadka ayaa waxa uu maanta u sheegay 2 ruux oo rayid ah inay dhinteen kadib markii gantaalada dowladda Iiraan firirkooda ay ku dhaceen dhismo ay dad shacab ay deganaayeen, laakiin macluumaadkan cusub oo dowladda Iiraan ay soo saartay Imaaraadku kama uusan hadlin. dhanka Bahrain ayay sidoo kale sheegeen Iiraan in gacantooda ay maanta ay gaartay. waxay sheegeen inay beegsadeen goob ay ku sugnaayeen ku dhawaad 80 askari oo ciidamada Mareykanka ah. beegsigaasina uu ahaa mid sax ah, khasaaraha lama xaqiijin ilaa iminka, iyagana ma aysan sheegin, laakiin waxay sheegeen kaliya goobta ay beegsadeen inay ku sugnaayeen ilaa 80 askari. waxay sidoo kale ay sheegeen inay beegsadeen xarun ay ciidamada badda ee dowladda Bahrain ay lahaayeen, sidoo kalena ciidamada Mareykanka ay ku sugnaayeen. Bahrain waxaa la sheegaa in Mareykanku uu ku leeyahay saldhigiisa badeed ee ugu weyn marka la joogo gobolka Khaliijka. saacadihii ugu dambeeyay Iiraan waxay sidoo kale ay sheegtay inay beegsateen markab laga leeyahay gudaha Israa'iil oo gacanka Khaliijka ku sugnaa. markabkan waxay sheegtay inuu gubtay. sidoo kale war-saxaafadeedka Iiraan waxaa lagu sheegay in la beegsaday markabka lagu magacaabo USS Abraham Lincoln. diyaarada drones ayayna sheegeen inay ku weerareen. waxay sidoo kale ay sheegeen inay beegsadeen maraakiib ku sugnaa gacanka Hormuz ee agaarkiisa, inkastoo faahfaahin aan laga bixin. marka guud ahaan aad eegto marka Iiraan waxay leedahay waxaan isticmaalnay 200 oo diyaarado drones ah, 100 gantaalo ah, waxaan beegsanay saldhigyo military oo Israa'iil iyo Mareykanka ay leeyihiin, waxaan burburinay raadaar, waxaan beegsanay xarumo muhiim ah. tan oo ka dhigan marka
warkii ugu weynaa oo Iiraan ka soo baxatan iyo dagaalka markii uu bilowday. sidoo kalena Israel ayaa maanta weeraro culus waxay ka fulisay gudaha Iiraan. malaha Iiraan culayska ay dareentay jawaabteeda ayay bixisay saacadii la soo dhaafay. markaad eegto muuqaalada la soo bandhigay ee muujinaya goobaha gantaalada laga tuurayo, sida Israakiisha Iiraan ugu faracsan yihiin gantaalada marka ay ridayaan, iyo goobo laga tuurayo diyaaradaha daroonaysa. weerarka dhowr jiho ayuu ahaa oo dhanka Xisbullah waxaa la sheegay inay dhankooda gantaale iyo diyaaradaha daroonaysa ay ku weerareen Israel, taas oo keentay in qaybo badan oo Israel ka mid ah seeriga digniinta mar qura laga maqlo. warbaahinta Israa'iilna waxay ku tilmaamayaan weerarkan tan iyo dagaalka markii uu bilowday kii ugu cuslaa oo dhanka Iiraan ka yimaada. warbaahinta Al Jazeera ayaa sidaas oo kala baahisay. waan arki doonaa wax walba oo ka soo kordha. muuqaalada ay soo bandhigayaan Israa'iiliyiinta ee barta Twitterkan waxay muujinayaan goobo badan oo gantaalada Iiraan ay ku dhaceen. wax walba oo soo kordha waan kula wadaagaya insha Allah. laakiin muuqaalka la wadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay.